السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا قول لك إن بشك بشير أو إذا له لوسو دبادو يوتيوب channel كيجا. كل سادة قبرت مرة بحاجة على إن أيدي صوب نيجا وحيا أو بالشدة فايدوله. هدي أتاهم مركي كوريس أصوب وقتو يوتيوب channel كينا فضلا هايلو إن سبسكرايب بعد كوزيز فيديو قال لايك ري هذا وما صنتهاي. ما أنترتو حربا إن إذا لو داعو أصحاب بدن أي وحيسو ويدي سي بشكو سليدا استعمال شتمها نوغسو جواب أما بمالويد وحاجر فيديو هرو كنال كجير عن صوبان ديجي سليد جرك صوب حنيسا مركز كاس أيضا فيديو كجير كنال كسر دعوة ما أنتو حربا إن إذا لو بداعو هرتو أنت هذا شيء أعلن استعمال وحكه رئيس رول كيس إن فهمتي مركو رئيسه هرت سليدة لاستعماله وحجوني تما هالوط هالكلمة جرت سليد أو تما هو نعسان الاستعمال دي سلوا فيري ودن كأي يلا سليدة ما أنت مركو هرتو وحنقولوا وداقي دونا دسكي إلى عين كرت تما إنه يتعطان أما تهاي فيل يكون عن دوجو رئيس هرت أنا سليدة الاستعماله وايلد أورجان أويل اللي هذا بارت رئيسه دبي سليدة هرتو وحصوص على دلك مراكو والسليد إسك عادية أنت هذا الاستعمالين قعدت يسار وجبوا في نساء يعني وجست وسبراي وكله then تماها مركز صار هذا تماها يا وحتكون مسج جرين نساء سي يعني إلا يجودها إن تجارسي سال غربة مركز سريدها بدنا الاستعمال هرتو وحي على الودنكي هذا سيدو كلا دلك إثيوبي وحي على سريدة أدو في عن dad badan oo xagan wadanka ay joogo way amaanaan saliidaha Ethioopianka oo xawaaya waxyaabaha laga sameeyo dabiici ah aad u wanaagsan timaha nafaqo aad u wanaagsanaysiisa ayada marka aad saliida isticmaalaysid ani waxa soo staa horta yaraanteedii ma sha Allah waxaan isticmaali jirnay saliid la yiraahdo CBC waxa saliidaas waxa laga sameeyay saliid qumbo ee heed gasacad ku jira abay qeyr Allah siiyo mar walba markay saa u dhamaata saliidaas oo gasac weyn la soo dhigi jiray waxaan aad u isticmaal caruurtoodan familkoodan saliidaas la isticmaali jiray waa saliid aad u wanaagsan kareenadan dambe oo gadaal soo baxay waxyaabo kiimika ku jira muhiimadu waxay ka wanaagsan saliida waxyaabaha dabiiciga laga sameeyay badanaana wadanka laga helaa marka saliidaas isticmaal mid ugu horeyso waa mid labaad markaad marsato saliida timahaaga qaabkaad u shaleynaysid ha ahaado qaabka saxda ee timaha qof walba horta saan ognahay oo wuxuu leeyahay timihiisa qaab u wanaagsan oo uu jecel yahay uu u shallaysto Soomaa adiga maalinba meel ha u shallaynin hal qaab aad jeceshahay oo tintaadana hal dhinac waa inaad bartaa mostly dad waxa jiro timahooda oo la soo seexiyo aanan korkor aanan loo shallayn karin haddii aad maanta aad ku khasabto timahaaga inaad korkor aad u shallayso marka waxay keenaysaa taas ayadana inay timihii ka daataan waayo qaab waxaad ku awood ahaan aad ugu sameysay qaabaysan loogu talgalay aan muddo aynan la qabsan inaad u shallayso ayaa la bar aad wax isku dayday inaad si khasaba u shallayso haddii aad sameysay xitaa dib waxay kaaga waxa laga yaabaa in dib kaaga imaadaan inuu bari kamaal timahaaga ay daataan marka iska ilaali hal qaab mar walba inaad u shallaysato isku day waa mideena labaad midda saddexaad horta saliida aad marsanayso mostly waxa u wanaagsan saliida waxa loo baahayaa saliid inay ugu badnaan ama ugu yaraanba inay 8 saacadood ay timahaaga oo gudaha ay u gasho mostly saliida horta waxa wanaagsan xitaa saan wad ognahay waxa wanaagsan saliida aad isticmaalaysid in ay 8 saacadood timahaaga ay ku jiraan waxaana wanaagsan markaad isticmaalaysid markaad guriga joogtid inta saliida marsatid timahana inaad gudaha aad u geystid ilaa iyo qaybta hoose aad ku haysid 8 saacadood waxaana aad u wanaagsan hadii aad heleeleysid xilliga habeenka intaadan seexan ka hor mostly dadku waxay tagaan guriga xilliga hore soo markaad cashaysid ama bacdal cisho intaad saliida aad qabatid ayaad waxaad sameynaysaa timaha si fiican ugu buuxsanaysaa kadib ilaa 8 saacadood kadib waa saaxanaysaa subax markaa soo toostana waa iska dhaqaysaa waa mideeni saddexaad iska ilaali amaba aad u sameey waxay taasna ay ku faa'iideynaysaa inay timahaaga aysan daadanin ay timahaagana growing ay sameeyaan mar walbana saajicesha ay ku noqon doonaan timaha 8 saacadood ku hay saliidaad ku shubto 8 saacadood ku hay timaha midda afaraad aan ku soo gabagbeynaa waxay tahay mostly dad waxa jira oo waxay taagan yihiin saliid kulul ama saliid oo yani madax ku shubna maskaxda saan in noqonayso waxyaabaha kulul aad ku shubtid saliid kulul hadii aad madaxaaga aad ku shubtid
waxaa laga yaabaa inay timihiiba ay gudaha ay meeshay kasoo baxayeen ay toos u galaan ay sababto inay tintii meeshay kasoo baxaysay ay dhimato. tintaan horta waa saan wad ognahay waa wax Ilaahay ugu talgalay meel ay kasoo baxday jiro, laakiin meesha ay kasoo baxaysa hadii aad wax kulul aad gud already way dhimatay sama meeshaas ay tinti kasoo bixi lahayd waxa laga yaabaa inay dhaawac noqoto ay tin kale aysan kasoo bixin. marka saliid kulul aad madaxa ku shubanaysid marka iska ilaali, hadii xitaa aad saliid aad ku shubanaysid xitaa ha ahaato wax qanda ama aan la dareemeynin kuleelka iska caadiga way mostly maadaama saliida hadda wadanka daa joogto uma baahnid inaad wax kululeyso kosof mar walba jawiga oo wadankii waska يعني kuleel dhaxdhaxaada. marka saliida mar walba isticmaalaysid intaad dabka saarso kuleyso saliid kulul aad madax ka shubayso aydan taasna waxay sababaysaa inay timaaga ay daataan. marka iska ilaali saliida yeena qawoobna la maro way saliida day qawow tahana ilan gudihi ma galayso, laakiin normal waa inay ahaato warm yani qandac waa inay ahaato. marka taasna waa mideeni afraadna kusoo gabagabeeyay. horta timaha mar walba qof walba horta timuhu leeyahay, laakiin hadii aadan keergareynin ama si wanaagsan aadan ugu taxadirin marka taasi dhibaatooyin badan ay ku keenaysaa inay timaha daataan adoo dhalinyaro ah bidaar degdeg ay kusoo gasho. marka kuma xirna inkastoo bidaarta ay da'na kusoo baxda, laakiin hadii aadan timaha si fiican aad u keergareyn waxa sababaysaa inay timihii dhaqso ay ka daataan. marka kareenada aad isticmaalaysid wax kareen ah isku murjinin oo internetka ka aragta mostly waxyaabahaas waa company ay soo saaraan ay doonayaan inay advertisement ama waxyaabo ay dadka kaga iibiyaan businesskooda ay horumar ku sameynayaan. taas isku murjinin saliida aad haysato oo wadanka laga helayo aad u wanaagsan hadii aad kuwaas si sax ah u isticmaasho xilliga oo caadi ah. hadda mostly aan saliida hadda tana in sheego aan soo iibsaday oo yani Morocco laga keenay xagan wax wadanka laga keeno ba xagana lagu iibiyaa way ayaga organic wax badan wadanka laga keeno waa natural. saliidaha Ethiopia laga keenay aad loo jecel saliidan oo kale hadda idin tusayay Morocco laga keenay. sidoo kale aan waxa markaan habeenkii horta intaas isticmaala maalinkii hadii aad baxaysid aad waayo xilli waa kuleel ayadana ma wanaagsan inaad saliid intaad madax ka buuxsatid aad banaanka la aad waayo waxa laga yaabaa inay wasaq iyo boor uu soo qabsado kadib gudaha meeshii tinta ka soo bixisa waxa laga yaabaa inay wasaq iyo tintaada ay ku dhigto. taasina waxay u keenaysaa tintii soo bixi lahayd inay meesha ku ceshanto waayo wasaq baaba kor saaran qaybta hoose Soomaa. marka isku day ayadan inaad timaha aadan isticmaalin xilliga aad banaanka aadaysid saliid aad u badan, saliid yar oo khafiif ah. hadii kale waxaad isticmaali kartaa aan hadda kareenkan ayaan isticmaalaa ayadana kulli wadankii waa laga helaa Vatika waa kareenkan yani asantaad tintaada oo yara oo marka soo qalajiso wax yar intaad gacanta marsato ayaad marsanaysaa asigana saliid badan ma lahan. banaanka waad ku aadi kartaa xilligaad shaqo u socoto ama xilligaad doonaysid inaad meel aado marka asigana wax badan ayuu ka saacidaa. marka maanta waxay jeclaysan intaas inaan idin la wadaago hadii aad video waxun ka faa'iiday haylo inaad like gareyso asxaabtaada ku la sii share garey. marka waxaan idin leeyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. peace and love nabada ka shaqeynaa.